Rooda Mukhtaar Yuusuf oo waqtigan ku sugan magaalada Hargeysa waxa ay jildil iyo xarig kala kulantay guurka wiil ay muddaha saawayeen oo ay u sheegtay reerkooga haddaba arintaasi iyo sidii ay ugu dhacday waxay uga warantay telefishinka Star ayga waxa la Rooda Mukhtaar Yuusuf Faarax waxa san laygu galay nin gabooyaaba doonatay ayaa la dildilay markii la maqlay sheekada waxaan xilnaa 3 habeen 3 maalmood أنا حنا حرق يلقوها يقم قوارت مكعنا ممكن متجان كم حد كدونا تبى الله يقول بلاد ما نكوس عني أن صامر سنة مركز كايدي ممكن حلا يورا هي جرجارو عاف ما صراع عن إلهي ويدي سنة يا إلهي هيلا جرب قلا dhinaca kale telefishinka Star waxa la hadlay aabaha dhalay wiilkani ay arintani ku dhacday inanka gabadha iskuursadeen baa dhalay markii aan ogaaday inay soo mehersadaan isqabaana aabaheed baan u tagay adigu soo ducaysid baan lahaa moogta oo taawad ma ciyalka istorteen yaan isku ducayno tii la muu sugin bee oo ugu bilaabay burkii ugu bilaabay burkii markuu ugu bilaabay inankayga oo gacanta hayaan la baxsaday inantiina waa la qabtay waa la dildilay markaa iyadina bilow bay ahayd oo hore isku soo meersadeen oo waxay isqabeen adu muddo 3 bilood ay qarsood isku qabeen ma gaynid ducadii iyo wixii aan u siday soo tanbur la igu bilaabay ee waxay ahayd anaguna gabooyaan nahay iyaguna waa isaaq sababtaas un baan anagu ma garanaysan lagu diiday dhinaca kale telefishinka Star waxa la hadlay madax dhaqameed ka soo jeeda deegaanka wiilkani inanta loo diiday windina ku arka wixii naga maqnaa waka ilaahay maanta cadeeyay waxaan nahay dad walaalihiina oo Soomaalilandara waxaan dad islaama bal cid annaka naga xarimaysa inaynu hablaheenu ay iskuursadaan iyo nimadeenu diinta islaamka idiina fasaxaysa in gaaladu idinka guursato oo gaalada in badan ay ku faraxdo markay gaaladu ka guursato annakoo islaama oo shahaadanayna oo isku dhaqana oo isku dala oo isku afa oo wax inoo kala doonayna jirin waxa habliina naga xaraantimeeyay gaaladana u fasaxay bal culumada reer Soomaaliland ama culumada Soomaalida ama culumada caalamkuba bal arintaas waa nooga soo jawaabaan waxa habliina naga xaraantimeeyay ee gabadhaas loogu cinqaabayo ee loo dildalayo ee leeynin reerkaas aad guursatay bal waxaan u bandhiginaa dadka culumada 24 saacadood masaajid baynu ku jirnaa waynu ashaadanayna muslim baan nahay baan leenahay afcaashii muslimnimadana dad in badan kuma arkino intaasoo qadiyadood baa dhacday oo noocan oo kala ah oo inaan yeelan istoontay ah oo sifadii sharciga hadla maray oo dadkii lacayn kala maray oo dhib iyo magaranaysa masaa'ib ka dhacay wax ka xumaaday oo ka damqaday oo ka hadlay oo ummadda uga degana maan arag culimada dad ka qabatay maan arag ciidan ka dhiidhiyay maan arag maxkamadda ka dhiidhiyay maan arag dawlad ka dhiidhiyay maan arag cid maan arag intaaba samir iyo dulqaad baan ku waday oo bulshada ay iska magaranaysaa dad ku celcelinaysa waxaan laga daayo anu waxaan u soo jeedinayaa bulshada anu aan ka soo jeeday ee gabooye ma kasta ku dhaqan tahay warnimo yahuud dulmiga noocan ah wuu farabatay oo tacaadiga waa farabatay oo dhibka waa inagu farabatay waxaan iska dulqaadi karnaana Soomaalidu waxay tiraahdaa gobonnimadu waa geed ku baxa dhiiga ragga arinkana waa arin aad iyo aad u xasaasi oo khatar weey inaan iyo inan baastoonay waa laba qof oo muslimiina waa laba qof oo shahaadanaya waa laba qof oo Soomaaliland waa laba qof oo meel ku wada barbaaray waa laba qof oo isirkoodii la garanay meesha ka soo jeedaan aabahood baa u tagay aabihii su'aashii labaadii ku soo celiyay waa inuu gacanna ka jabiyo dhabaxana ku sameeyo dawladdu loo ashtakoodina ay waxba ka qaban weydi khafeetadii buu sitaa war waxaanoo kale wax loo dul qaadan kara ma wax la aamini kara ma harin runtii anu arka noocan oo kala runtii uma arka arin ku dhamaanaya inaan mar walba ka cabano oo aan ka qaylnay waxaan u baahanay ficil baan u baahanay telefishinka Star oo dhowr jeer isku dayay inuu arintani wax ka weydiiyo qoyska kale ee laga cabanayo noomay suurta galin arintani waxa si kulul u cabaareeyay xisbiga mucaaradka ee wadani xogayaha cadaaladda ee xisbigaasi Barkhad Jaamac Batuun ayaa cod dheer arintaasi ku cambaareeyay
ficilkaa foosha xun ee dadnimada iyo damiirka sanba diidayo runtii waa wax ceeb iyo cambaar ku ah habnololeedka bulshadeenna waa wax runtii markaan anigu shakhsiyan aan arkay aan ka ilmeeyey aan ka damqaday oo yacnihii u isbedelay damiirkaygu inan iyo inan isjeclaaday waa laysuba diidi karayaa khilaaf qoys baa iman karayaa laakiin dee qof ilaahay subxaana wa tacaala abuuray oo bashara oo kula diina oo kula dhaqana oo kula afa oo kula deegaana oo kula damiira oo kula dareena oo kula dadaala oo kula qarannimada kula jecel oo in muuqaal iyo mid macnawiya iyo mid xisiya toona aynasan ka muuqan sharcada islaamkuna waa bannaynaysaa dadnimadeenna iyo damiirkeenna sanna waa bannaynayaa in inantaa iyo inankaa laysku ogolaa sabab laysugu diidayna ma jirto inanku ma kaafir baa ma islaam baa ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa wuxuu ka xarimay waa dulmiga xadiis alqudus ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay yaa cibaadii innii xaramtu dulmi nafs nafteeda waxaan ka xaaraantimeeyey shayga la yidhaahdo dulmiga anigoo ilaahay subxaana wa tacaala koomkan iska lahaaya wajacala baynakum xaraaman dhexdiinnana waxaan ka dhigay mid xaaraama falaa tadaalamuu ee haysdulmiina ilaahay baa sidaale kacisbi ahaan waxaan u aragnaa arrin ceeb qaranka ku ah waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha amniga hay-adaha garsoorka ee u soo dhereeriya xidhitaanka mas-uuliyiinta axsaabta mucaaridka ah cidda xadhigga u baahan ee cadaaladda u baahan ee sharciga in la horgeeya u baahan waa cidda tacadiga noocaasa geysatay cidda u baahan in wax laga qabtaa waa kuwaas war sharcigu waa shaqeeyo qolooyinka culimmadana waxaan leeyahay diintu maaha in laga hadluun baan baa xaaraana iyo ribaa caynkana iyo xaafad baa xaafad xalay shida nabadgelyaa la ilaa diintu intaa maaha diintu waxay u soo degtay waa la dagaalanka dulmiga war ummadda ama diinta u sheega oo yidhahdo war waxan waa dulmi oo jimcayaasha kaga hadla ama ummadda u caddeeya inay ummaddani gaalo tahay oo laga guursan karin haddaba arrintaasi maxay ka qabtaa diinta islaamku agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Saleemaan Siciid Cali waxa weydiiyay bal arrintan iyo waxa ay diinta islaamku ka qabto marka qofku ka guursanayo ee guurka qofku ku dhisayo qabiilkiisu kuma laha tacalluq kuma laha waxa la isku guursada waa islaam waxa la isugu diidaana waa islaamnimo marka guurku reer kuma xidhna qofkana reer muu yahay kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay islaamnimadu ku xidhan nabiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam markuu idin yimaado midaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka noqoteen u guuray hadday taasi dhici weydo takun fil ardi fasaadun cariid baa nabigu calayhi salaatu wasalaam fasaad ballaaran baa dhici doono zina iyo xumaan oo dhan baa dhici doonta marka guurka waxa uu shardiya qofka in akhlaaqdiisana raalli laga noqdo diintiisana raalli laga noqdo qofku inuu muslim yahay akhlaaq wanaagsan hadduu aabbahaas inanta ugu diiday inanka imika inanta loo dhisaayey ee dagaalku ka dhacay hadduu dhinaca akhlaaqda ugu diiday iyo diinta uu saxay laakiin mid uu ku qaldan dee inuu inanta suriyeeyo oo dhibo oo xidhxidho oo taasi waa qadiyad aan u bannaanayn aabuu xaq buu leeyahay dhisid inanta iyo diidmadeedaba laakiin waa goorma hadduu islaamnimo ugu diiday uu saxay ninkaasi inaanu diinta ku fiicnayn inaanu tukanahayn inaanu muslim ahayn ileen inagu ma ogin wuxuu ugu diiday qolada hadlaysaana waxay tidhi qabiil baa la noogu diiday laakiin hadduu islaamnimo ugu diiday waa sax haddaanu islaamnimo ugu diidin ee uu qabiil ugu diiday sidaa ay sheegayaan waa arrin mamnuuca oo shareecada islaamku aanay ogolayn soomaalida waxaan leeyahay barnaamijka iyo arrinkaas waa arrin shareecada islaamka ku hor joogaysa in dad la takoora ma bannaana waa arrin aan bannaanayn waxaynu hablaha u dhisnaa qaar aynaan garanayno nin cad baa iska imanaya hadduu doono waa muslim baa la odhanaya qaar deetana islaamnimadiisaba isagoon la hubin ayaa loo dhisay marka runtii anu waxaan ku baraarujinaya dadka dajeeraanka nahayn walaalaha nahayn wada dhaqana in tacaamul wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan inuu dhexdeena yimaado iyaguna inay dadaalaan
iyagu bulshada ka mid yihiin waxba kama dhinne waliba gabooyu waxba kama dhinne iyaguna hadda dadaalaano dadku ha ogaadaan inay walaalahood yihiin Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.